Macluumaadka iyo xogta aan kugula wadaagi doono muuqaalkan ama mowduucan waa mid aadan marnaba aadan ku soo baran iskuulka iyo waxbarashada. Sababtoo ah nidaamkan iskuulka waa mid aysan dantiisu ku jirin inaad barato xogtan iyo macluumaadkan. Maxaa yeelay nidaamkan iskuulka waa mid ay dantiisu ay tahay oo keliya inaad noqoto shaqaale fiican oo howlkar ah. Haddaba haddii aad maanta rabto inaad dhaqaalahaaga iyo dakhligaaga aad si fiican u maamusho, fadlan dhammayso muuqaalkan. Waa muuqaalkii aad rabtay. Ma og tahay lacagta akoonkaaga bangiga ama jeebkaaga soo gasha mar walba inaysan ahayn oo keliya mid marna soo gasha jeebkaaga marna ka baxda, balse ay tahay lacag ku soo gasho ujeeddo iyo magac gaar ah, kuna baxda magac iyo ujeeddo gaar ah. Tusaale ka soo qaad haddii ay maanta moobilkaaga kugu soo dhacdo fariin ah inaad ku guulaysatay 10 milyan oo dollar, waxaad isweydiisaa adiga ka shakhsi ahaantaada 10kaas milyan ee ku soo gashay imise ayaad ku leedahay lacagtaas. In badan oo dadka ka mid ah haddii la weydiin lahaa su'aashan waxay ku jawaabi lahaayeen waxaan helay oo ku guulaystay 10 milyan oo dollar, waxaana wada leeyahay 10kaas milyan siduu u dhan yahay dhammaantiisa. Balse haddii loo bandhigo isla su'aashan dadka taajiriinta ah waxay ku jawaabi lahaayeen keliya waxaan ku leeyahay lacagtaas 10 milyan wixii xaqa aan ku leeyahay, taasoona micnaheedu ay tahay waxaan ku leeyahay 3 milyan iyo 300 oo kun oo dollar. Haddaba su'aasha aad isweydiin doonto ayaa waxay tahay halkee ka baxday 6 milyan iyo 700 ee kun ee ka soo hartay lacagta. Isla markii ay soo gashay lacagtaas 10 milyan ee dollar ayay durbadiiba waxay u qaybiyeen ilaa iyo 3 meelood oo kala duwan. Qaybta koowaad waxay u qoondeeyaan xisaabaadka koontada deymaha ama waxa loo yaqaano liability. Qaybta labaadna waxay u qoondeeyaan koontada xisaabaadka maalgelinta, iyo qaybta ugu dambaysa ay ugu talagaleen xisaabaadka shakhsi ahaantooda ku baxa. Waana sababtaas qofka taajirka markuu helo lacagtaas uu u dhaho waxaan ku leeyahay lacagtaas markii 3 meel loo qaybiyo 1 meel oo keliya, halka inta kale ee soo hartay lacagtaas uu ku shubo koontada maalgelinta iyo deymaha. Mana laga yaabo qofka taajirka weligiis inuu labadaas koonto uu wax ka taabto, xitaa haddii uu yahay 1 senti iyo wax ka yar, isagoona qofka taajirka lacagtaas ugu talagalay oo keliya in lagu bixiyo horumarinta iyo mashaariicda mustaqbalka u qorshaysan. Waana sidaas qaabka iyo nidaamka ugu fiican aad u maamuli karto lacagtaada. Dadka saboolka iyo dadka dabaqada dhexe waxay inta badan iibsadaan waxa la yiraahdo liability ama deymaha, yacni waxay markasta lacagahooda ku bixiyaan waxyaabo aanan wax faa'iido haba yaraatee aanan ka soo galaynin, keliya markii laga soo tago inay lacagahooda iyo maalkooda ay ku baabi'iyaan gadashada waxyaabo aanan loo baahnayn iyo ku raaxaysi. Halka dadka taajiriinta ay iibsadaan waxa la yiraahdo assetka ama hantida. Haddaba si aan sharaxaad yar kaaga siiyo farqiga dhabta ee u dhexeeya dadka taajiriinta iyo dadka saboolka iyo dabaqada dhexe, waxaan marka hore kaa rabaa inaad meel ku sii qorato labadan eray ee la kala yiraahdo dakhliga iyo hantida. Dakhli waxaa la yiraahdaa lacag walba oo soo gasha jeebkaaga ama akoonkaaga, ha ahaado mushaarkaaga, faa'iidooyinka aad ka hesho mashruucaaga, sadaqo ku soo gashay, iyo wax kasta oo markaas soo gala jeebkaaga iyo akoonkaaga ayaa waxaa la yiraahdaa dakhli. Balse hantida waxa la yiraahdo dadka agtooda waa mid ay ku kala qaybsameen oo dadka qaarba qaarkooda kale ay u adeegsadaan micno iyaga u gaar ah. Sida tusaale, dadka saboolka iyo dadka dabaqada dhexe waxay u arkaan hantida inay tahay wax walba ay leeyihiin, ha ahaado guri, gaari, dahab, dhul iyo wixii la midka ah. Balse halka dadka taajiriinta ay u yaqaanaan hantida inay tahay wax walba ay leeyihiin oo markaas xaggooda soo gelin kara faa'iido iyo dakhli ay ku xisaabtamaan. Tusaale ka soo qaad haddaad kirayso guri aad adigu leedahay, ama gaari kuu shaqeeya, ama wax kaloo kuu shaqeeya oo dakhli ku soo geliya, waa hanti aad adigu leedahay oo wax ku soo geliya. haddana waxaan rabaa inaan isla fiirino waxa la yiraahdo masaariif iyo waxa la yiraahdo mas'uuliyad ama waajibaad.
Ha ka baqin mid kasta oo ka mid ah magacyadan waxay naga caawin doonaan inaan helno farqiga dhabta ee u dhexeeya qofka taajirka ah iyo qofka saboolka ah. Haddaba masaariiftu waa wax walba oo maalin walba ku bixino maciishadeenna, sida cuntada, biyaha, adeegga, labiska, iyo waxyaabaha la midka ah ayaa waxaa la yidhaahdaa masaariif ama nafaqo. Balse mas'uuliyadda ama waajibaadka waa waxyaabaha lagaa rabo inaad qadarkooda bixiso, oo ay ka mid tahay markaas kirada guriga, canshuurta gaariga, korontada, deymaha lagaa rabo, iyo qaansheegadka ayaa ah mas'uuliyad ama waajibaad lagaa rabo inaad bixiso. Sidaa daraaddeed erayadan aan kuu soo sheegay waxay dadka taajiriinta iyo dadka saboolka iyo dabaqadda dhexe waxay u kala adeegsadaan laba qaab oo midba midkiisa kale uu ka duwan yahay. Marka koowaad, dadka saboolka iyo dabaqadda dhexe waxay helaan dakhli soo gala jeebkooda, wuxuuna dakhligaas uu noqon karaa mid ka soo galay dhanka mushaarkooda, waxayna ku xisaabtamaan oo keliya mushaarkooda, iyagoo islamarkaasina aanan haysan wax hantiya oo si gaara u soo gelisa dakhli. Sidaa daraaddeed, marka koowaad dakhligii ka soo galay mushaarkoodii waxay si toosa ugu bixiyaan dhanka masaariifta oo ah sidii cuntadii, biyihii, labiskii, iyo wax kasta oo hoos yimaada markaas maciishadooda. Kadibna waxay dakhligoodii ay ku sii bixiyaan mas'uuliyaddii iyo waajibaadkii oo ahayd sidii kiradii guriga, canshuurtii gaariga, korontadii, tiifigii, iyo deymihii laga rabay, isagoona ugu dambayntii uu sidaas ku dhammaado dakhligii ka soo galay mushaarkiisa. Waana sababtaas midda ka dhigtay dabaqaddaas inay mar walba ahaadaan kuwo aanan ka bixin dabinka faqriga iyo saboolnimada, halka qolada taajiriinta ah ee mar kasta ay sameeyaan dakhli iyaga soo gala, laakiin ka duwan midka soo gala dadka saboolka iyo dabaqadda dhexe. Dakhliga dadka taajiriinta ay kasbadaan waa mid asalkiisii ka yimid mashruuc iyo hanti ay lahaayeen oo markaas si toosa u soo gelisa dakhli. Sidoo kale, dabaqaddan dadka taajiriinta waxay bixiyaan masaariifta iyo mas'uuliyaadka, laakiin markaan iyaga iyo dadka saboolka farqiga u dhexeeya ayaa wuxuu yahay intuusan qofka taajirka uusan bixin mas'uuliyaadka iyo masaariifta, ayuu wuxuu soo qaadaa qadar go'an oo dakhli ah, isagoo markaasina ku rida qaybta hantida ama esedka. Intaas kadib ayuu wuxuu bixiyaa mas'uuliyaadka iyo waajibaadka sida canshuurta gaariga, korontada, deymaha, qaansheegadka, iyo wax walba oo markaas loogu taagnaa inuu bixiyo, isagoona ugu dambayntiina ku noolaada intii kale ee ka soo hartay dakhligiisa. Middaasna waa habka iyo nidaamka uu u dhaqmo qofka taajirka ah, isagoona muddo kadibna hantidiisa iyo mashaariicdiisu ay noqdaan kuwa maalinba maalinta ay ka dambayso u sii koro si xawaare ah. Mar kasta uu sidaas u soo galo dakhli, waa mid islamarkiiba dakhligaas ku dara hantidiisa si uu markaasna ugu sii horumariyo mashaariic kale oo cusub. Waxaadna ogaataa wax walba oo dakhli soo geliya dhankaaga goor kasta inay tahay hantidaas midda dhabta ee asalka ah. Waana sababta ay muhiimadda koowaad u siiyaan dadka taajiriinta hantida asalka ah. Robert Kiyosaki, oo ah khabiir ku xeel dheer xagga dhaqaalaha iyo hantida maguurtada, ayaa wuxuu yidhi, faqriga iyo saboolnimadu waa wax la iska dhaxlo, waa wax uu qofku ka dhaxlo ama uu ka barto bii'ada uu ku dhex nool yahay. Haddii uu qofku ku soo koro bii'ad faqri iyo sabool ah, wuxuu isaguna u fikiri doonaa isla sida ay u fikiraan dadka saboolka ah. Tusaale ka soo qaad, haddii uu qofku ku soo koro bii'ad dadkeedu aysan aqoonin sida loo maamulo lacagta, bii'o dadkeedu ay yihiin kuwa ku bixiya lacagahooda meelo aanan loo baahnayn, wuxuuna isaguna lacagta soo gasho uu ku bixin doonaa si maalaayacni iyo maamul la'aan ah. Balse haddii uu qofku ku soo koro bii'ad dadkeedu ay yaqaanaan sida loo maamulo lacagta iyo sida loo maalgashto, wuxuu isaguna noqdaa mid si fiican u yaqaana sida loo maamulo lacagta iyo sida loo maalgashto. Qof walba oo naga mid ah wuxuu awood u leeyahay inuu xaqiijiyo maal iyo hanti ku filan, balse waa haddii uu qofku dabaqo xeeladaha iyo qawaaniinta lagu sameeyo hantida, looguna maamulo lacagta si fiican oo ka fiirsasho leh. Dadka saboolka ah inta badan waxay aaminsan yihiin inay lacagtu tahay shay xun oo shar ah, oo haddii uu qofku sameeyo lacagtaas ka dhigta mid gebi ahaantiisaba beddesha. Balse haddana sidaas ay tahay, waa kuwo u baahan inay sameeyaan lacagta laftigeeda, iyagoona haddana aanan aqoonin waxyaabaha ka hortaagan inay sameeyaan hantida iyo lacagta, iyagoona weliba haddii ay maanta nasiib u yeeshaan inay soo gasho jeebkooda lacag badan,
xitaa aanan aqoonin sida loo maamulo ama loo maalgashto. Dadka saboolka iyo dabaqadda dhexe waxaa inta badan ka dhaadhacsan haddii ay helaan lacag badan inay samayn karaan mashruuc ama ganacsi weyn oo guulaysta, iyagoona aaminsan in lacagta badan sideedaba ay dhasho lacag badan. balse haddana muddo yar kadib waxay baabi'iyaan lacagtii soo gashay dhammaanteedii, iyagoo xitaa aanan kuu sheegi karin halkay ka baxday iyo waxay ku qabteen. mowduucina maantana intaas ayuu ku egyahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.